guddiga runtii marka koowaad waa u mahadcelinayaa xisaab xir aad dib u dhac weyn ku jiro oo sanadkii 2017 ayaa waqtigii kii 2018 aan xisaabin lahayn naloo keenay. waa mahadsantihiin. marka midda labaad waxaan isla xisaab xirka laftiisa iyo waqtiyada la keeno oo aysan guddigu eed ku lahayn ayaa rabaa inaan su-aal ka weydiiyo wasaaradda. guddiguna waa soo qoray qodobka 102 faqradiisa koowaad ee xoorasaadka golaha shacabku wuxuu qabaa in ugu dambeyn 30 bisha 6aad in miisaaniyadda sanadkii tagtay la ansixiyo. halkan waxay ku soo qoreen 10kii bishii 10aad 2018 ayayba miisaaniyadda la keenayba ayadoo xeerosaad ku qabo ugu dambeyn 30 bisha 6aad in la ansixiyo. xeerosaadka qaba guddigaas soo qoray warqadiisa bejka koowaad baad ka arki karta, bejka labaad. haddana waxaa laga hadlayo xildhibaankii igu horreeyay uu ka hadlayay in dee procedurkii iyo shuruucdii baarlamaanka u yaalay in la baalmaro oo la baalmaray oo waxyaalo aan ku qornayn procedureskii la keenay oo miisaaniyaddan ay ka mid yihiin. marka wasaaradda waxaan weydiinaynaa mawlakac ayay isaga khilaafsan tahay mise wasaaradda lamaba xisaabiyaba mise guddoonka golaha shacabka ayaaban xeeroosaadka laftiisu ilaalin oo ku bareshar gareyn wasaaradda iyo howlaheeda waqtigii noo go-naa inaan lagu keenin xisaab xirka oo ay muuqato midda 2018 juuntii hadda waa dhowdahay, waqti yar baa ka dhiman inaan 30 bisha ay ahayd hadda in doodeeda lagu guda jiro tii 2018 laakiin hadda 17 aan ku jirno. marka arrintaas ciday u taallaba su-aashaas wasaaradduna dee way ka soo dibdhacday waqtigii lagu talagalay, guddoonkuna kolley ma u malaynayo inay bareshar saareen. marka arrintaas runtii dee waa waxaan meesha u fadhina shuruucdii iyo waxaas inaan ilaalino oo baarlamaankan uu degsado waayo. qodobka xiga su-aashii hadda u dambeysay ayuu la xiriirtaa oo iyadana ay guddigu soo qoreen 33,417,453 ka ziyaada qoondadii oo miisaaniyadda aan ku jirin lacago deeqa ah oo dalal kale ka yimid in lagu daray ayadoona ogolaasho laga haysan golaha shacabka. hadda marka ma ogolaashay ku taha halkan haddii xisaab xirkii lagu soo qoray lacago qalad ah oo la isticmaalay oo qasnada dowladda si sharci darraa loogala baxay, haddii la rabo meelo sharciga lagu bixiye meelo saxa lagu bixiye ma waxaa la rabaa in lagu sharciyeeyo xisaab xirka lacagaan baarlamaanku ansixin oo 33,700,000 iyo intaas. tan saddexaad waxay tahay oo ka soo laabanaysa hay-ado badan ba halkan ku qoran oo miisaaniyaddan tirada badan oo dhan ay ku baxday. hay-adaha wasaaradda maaliyaddu markay xisaabta soo xirayso xisaab xirka ma hay-adihii bay dul tagtaa oo masalan wasaaradda gaashaandhigga lacagta ku baxda ama talisyada ciidanka lacagta ku baxa ama wasaaradaha kala duwan xisaab xir ay u soo gudbiyaan oo ay ka dalbato miyay xisaabtan ugu soo xiraan mase lacagtii qoondada ahayd intii laga siiyey iyo intii ka dhimanayd bay noo kala jaraan oo noo soo geliyaan miisaaniyadda? haddii ay taasi jirto guddiga maaliyadda ma lala wadaagay wax supportive document ah oo ku saabsan xisaab xirka diibli ah oo hoose ee wasaaradaha ma lala wadaagay mise xisaabaadkana loo kala jaraa keliya wixii la siiyey iyo wixii ka maqnaa? deeqa ayaa la filayay aan halkaan imaan baa la yiri lacagtan badankeedana 57% guddigu waxay noo sheegeen inay deeqaha tahay dibadda nooga yimid 43%na dakhliga dalka ay tahay. lacagtaas waxaa muuqata marka laga isticmaalay 33 milyan lacag kale
inay ka dhimanayd deeqihii lacagtii la filayay inay timaado ma nala wadaagi kartaa wasaaradda sharafta leh deeqahaas dowladaha aan keenin iyo meelihii laga filayay ee aan laga helin iyo sababta loo goostay waa mahadsantiin